wanaagsan akhyaartan hawada ku saaxiibnay oo idilkiinba ku soo dhowaada Nogo Media qodobada wararkeena ugu door karoon waxaa ka mid ah maamulkeena cagjiro awood u sheeganaya odayaal dhaqameedka degmada Bilqod ismaamulka Puntland oo jawaab ka bixiyay qoraalkii farmaajo uu ku soo daabacay bartiisa Facebook ajeelka ugu weyn ee sababa weerar ka dhacay waxaad ku soo dhawaataan wararkaas oo fidsan warkan waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdikaaf Maxamed ah iyo wariye Cabdiqaadir booliiska deegaanka oo ugaarsanaya ugaasyada degmada Bilqod ee gobolka Jarar waxaana galabta loo taxaabay hoggaanka dhaqanka degmada Bilqod booliisku ma ayna sheegin sababta loo xiray ama loo raadsanayo odayaal dhaqameedka Bilqod hase yeeshee waxaa shalay casarkii boolisku ay xireen Maxamed Askar oo ku sugnaa hoteelka ugu weyn magaalada Jigjiga sidoo kalena waxaa la maqlay in lagu raadshogo odayaal ku qabsaday shir degmada Bilqod oo kaga hadlaya arrimaha dhulbalaarsiga ay wadaan dhinaca jaryareerkiisa taliyaha ciidanka booliska generaalka Fayda ayaa sheegay in taleefanka uu kala hadlay Cabdullaahi Shaqlan oo ka mid ahaa odayaasha dhowaan ka hadlaya degmada Bilqod generaalku waxa uu sheegay in uu gacantiisa isku soo xiro markii uu diiday Cabdullaahi Shaqlan ayaa loo diray dhowr gaari oo isaga raadsanaysa odayaashan ayaa ka cabanayay in muddooyinka dambe ay dawladdu raadsanayso ayagoo reer Bilqod ay yihiin dad dulman oo shaatiga dawladda loo soo xidhay maamulkeena cagjar waxa uu ku lug leeyahay xasuuqii ka dhacay qolad wixii ka hadla arrimaha tacadiga ka dhaca deegaanka Soomaalida xabsiga loo taxaabayo maamulka Puntland oo jawaab ka bixiyay hadalkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku soo daabacay bartiisa Facebook waxaana inoo dhamaystiraya wariyaha Cabdiqaadir gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo war qoraal soo saaray ayaa jawaab ka bixiyay qoraalka madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay doorashooyinka maamulkaasi Jibriil ayaa marka hore qoraalkiisa ugu mahadceliyay Farmaajo oo si weyn u bogaadiyay doorashooyinka qof iyo cod ee biri ka bilaabanaysa deegaanada Puntland uu ku mahadsan yahay bogaadinta iyo hambalyada uu shacabka iyo dawladda Puntland hawada u soo mariyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu qoraalkiisa ku yiri gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland waxaan leeyahay madaxweyne waan kugu bogaadinayaa inaad taageertay barnaamijka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ka hana qaada Puntland mahadsanid mudane madaxweyne guuleyso adiguna mar kale ayuu mar kale qoraalka ku yiri gudoomiyaha Farmaajo oo xalay war saxaafadeed soo saaray ayaa ku bogaadiyay Puntland bulsho iyo maamulba sida ay ugu istaageen hirgelinta doorashada golayaasha deegaanka taas oo horseedaysa in dadka ay codkooda ku doortaan hoggaanada deegaanadooda sidoo kale wuxuu intaas ku dar in hirgelinta doorashada qof iyo cod ee heer deegaan iyo heer federaalba ay ka mid tahay milooyinka uu dadaalka ku bixinayay maadaama ay tahay dhabaha kaliya ee xoojin kara isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga dalka hanaankan doorashada tooska in ay ka hirgasho Puntland waxay tusaale u tahay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu hamuun qabaan in ay hoggaankooda ku soo doortaan codkooda arrinkaas oo aan hore dadaal ugu bixin lana jecelnahay in ay gaaraan dhammaan deegaanada dalkeena heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayuu yiri xabsiga ugu weyn ee Addis Ababa waxaa ka dhacay waxa inoo faahfaahinaya wariye Khadar Khaliif oo ku saabsan waxa ka dhacay jeelka Qaleti oo ku yaala magaalada Addis Ababa hase yeeshee sida ay wararku sheegayaan abbaaro 10kii fiidnimo ee waqtiga geeska Afrika ee habeenkii ay Khamiistu soo galaysay ayay maxaabiista qaarkood isku dayeen inay ka baxsadaan jeelka warar kala duwan oo laga helay jeelka Qaleti ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay 5 kalena ay ku dhaawacmeen markii ay ilaalada ama ciidamada ilaaliya jeelka ay xabad ku fureen maxaabiis isku dayay inay ka baxsadaan jeelka sida ay wararku sheegayaan bugcad ay ku jiraan maxaabiis u badan qoomiyadaha kale Itoobiya oo lagu xukumay 10 sanadood iyo in ka badan ayaa god ka dhex qotay gudaha jeelka si ay uga baxsadaan waxaana jira warar sheegaya in qaarkood ay baxsadeen maxaabiistaasi madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo maxaabiista kale ee Soomaalida ah ee kula xidhan jeelka ayaa la sheegay inay nabad qabaan oo aanay waxba ka soo gaadhin rabshadahaasi waxaana la sheegay in qaybta ay ku xidhan yihiin maxaabiista Soomaalidu aysan waxba ka dhicin